nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii oo fadhiya ayuu wuxuu nabigu yidhi waxaa idiin soo gelaya nin ahlu jannah ka mid a nin nooloo soconaya buu nabigu leeyahy ahlu jannah ka mid a dabeetana nin baa yimi ansaariya oo garhkiisa weysadii ka da-ayso oo labada kaboodna bidixda ku sita maalin dambe ayuu haddana nabigu yidhi nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya isla ninkii unbaa soo galay mar saddexaad ayuu haddana nabigu yidhi nin ahlu jannah ka mid a idiin imanaya haddana ninkii unbaa soo galay saxaabi cabdillaahi bnu camar ibnu caas la yidhaahdaa wuxuu yidhi waar bal ninka kani wuxuu rag ku dhaafay ee loo leeyuun markuu soo galayaba nin ahlu jannah ka mid a soo gelaya bal raadcee dabeetana waxoogaa marmarsiiyuu u samaystay inuu martigeliyo ninkii wuu martigeliyey 3 habeen buu la seexday ninka gurigiisii habeenkii markuu la seexanayo bal ninkan wuxuu ilaaliyaa wuxuu qabto cishuhu tukadaa wixii ugu tira lagu qoray salaad buu iska tukadaa waa iska seexdaa habeenkii saqda dhexe markuu baraarugo isrogaba waa tawxiidsadaa waa istaghfirlaystaa yani waa dikriya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya qofka wayse qab ku seexda habeenkii markuu soo kaco subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata illa billah idhaha allahuma akfir lii ilaahay dembigiisa waa dhaafaa markuu habeenkii toose isrogrogayo adkaartaa yar kooban akhrista ilaahay dembiga waa ka dhaafaa markana intaana waa sameeyaa 3 maalmood markay dhammaatay ayuu wuxuu ku yidhi cabdillaahi bnu camar warniya waxaan rabaa bal inaad ii waranto salaada subax markay soo dhowdana wuu kacaa unoo dee fajriga dadka siday u tukanayeen buulaba wuxuu niya wax dhibi ma jirin waxaanan kuugu imi inaan ogaado waxaad qabato camal weyn oo gaaroo lagugu tilmaamana maan arag ee maxaa halkan ku gaadhsiiyey nebi maxamed sheegaya ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leenahay ahlu janno ah dadkiina ma arkaba inaad ka acmaal badan tahay waxa aad qabataaye wax ii sheeg buu ku yidhi wuxuu ku yidhi intaa aad aragta mooyaane wax kale ma sameeyo isagoo la yaaban markuu isiri dhaqaaq buu u yeedho wuxuu yidhi laakiin mid aan kuu sheego qof muslima gish iyo khiyaamo kuma sameeyo wax xaasidnimo iyo waxaan laabta ugu hayaana muslimiinta ma jiraan cabdillaahi wuxuu yidhi haadihi alatii balagat bik wahiya alatii laa nutiiq waar waa tantaad meesha ku gaadhay buu yidhi annana aanu kari weyn in laabtaadu nadiif tahay oo aanad cidna laabxumo ugu haynin waa mas'aladan buu leeyahy mas'alada idan ayuha alaxiba waxaan leenahay أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار إلهي باكو أماني تابعينتي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا ما إن أدلاب فيوباتا أديك عافمات قبي كوت واحد سيحان سادو مير قبو عافمات قبو وحني بكو هاي adoo ciil qaba haddaas tiraahda seexana gamiba maysid 9 jeer baad hurdada ka toosaysa iyadoo kolba maskaxdaadu ay soo celinayso warku taalooyinka iyo wixii dhibku haysatay waxaad ka badbaadaysaa colaadaha iyo dhibtoo dhan walidaalika qur-aanka u fiirso ambiyada ilaahay markuu sifeynayo waxyaabaha lagu sifeeyey ugu waaweyn waxaa ka mid a inay dad laabtoodu nadiif ahayd yani waa min sifaat alambiyaa haddaynu nebi ibraahim ku tilmaamnay إذ جاء ربه بقلب سليم نبي محمد أنس بن مالك حديث كوريني وكاله من انتقم لنفسه ولقي ما أرقصا معناه دوام محل مدح عيل قبطة هدي دده قامي سوالا جلا لأن سلا أرقصا مرير بالحبال أما كوا قربي أما سياسيين تنتن كان حبال أما نن عيل قبا هدو مدح نغضه ولا قوم قوران nin laakiin laabtiisu caafimaad qabto dadka inuu kor wado socda hadduu yimaado waxbuu